mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa goordhow soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana afaafka hore ee magaalada si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka degmada iyo shacabka iyo xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda madaxweynaha waxaa socdaalkan ku wehelinaya wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka kalluumaysiga iyo xiriiryaha guud ee dawlad goboleedka Galmudug madaxweynuhu waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Cadaado oo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu ku sugnaa halkaasi oo uu kula lahaa waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka isla markaana uu kala hadlayay arrimaha la xiriira xoojinta arinta dib u heshiisiinta ka hor inta uusan madaxweynuhu soo gaarin magaalada Gaalkacyo waxa uu soo maray degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud halkaasi oo uu kulan kula qaatay waxgaradka isla markaana ku dhiirigeliyay inay u diyaar garoobaan qabsoomidda gogoshii dib u heshiisiinta ee uu madaxweynuhu iclaamiyay intii uu ku guda jiray socdaalkii nabadda bishii 5aad ilaa iyo bishii 6aad madaxweynuhu magaalada Gaalkacyo waxa uu u yimid arrimo la xiriira adkeynta nabadgelyada isaga oona markaasi kulamo kala duwan la qaadan doona waxgaradka isagoo sidoo kalena soo xiri doona tababar ciidamada daraawiishta oo halkan lagu soo gabagabeynayo tababarkaasi oo furmay bishii 6aad